degdeg maalintii biri ah ayaa la qorsheynayaa in tiirka cadaaladeed la geeyo Sayid Cali Macalin Daawud oo horey xaaskiisa u gubay xilli reerkiisa loo yeeray si ay u arkaan wiilkooda markii ugu dambeysay maalintii biri ah ayaana la qorsheynayaa in tiirka cadaaladda uu ka soo muuqdo Sayid Cali Macalin Daawud xogo iyo waliba sidoo kale macluumaad dheeri ah oo caawa soo ifbaxaya ayaan rabaa daawada in halkan kuula wadaago haddii aad ku faraxsan tahay in walaasheena Luul Cabdicasiis ay cadaaladeeda in badan loo raadinayay aad ku faraxsan tahay muuqaalkan la garay siina sheegay qaybta hoose ee maartay commentskan ku soo qor cadaaladda mar walba ha sareyso cadaaladda ayaa ah mid ugu sareyso hagaag kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan aad iga daawanaysaan waa YouTube-kayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horreysay fadlan YouTube-ka subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna like saar siina sheegay saaxiibada la wadaag maasin hagaag aynu ku bilaawno habeen wanaagsan ayaan saaxiib yaal idin leeyahay dhammaan meel kasto aad joogtaan oo aad muuqaalkan ka daawanaysaan warar hoose oo soo ifbaxaya ayaa daawadayaal ayaan rabaa in halkan kuula wadaago waxa caawa soo ifbaxaysa in maalintii biri ah la qorsheynaya in Sayid Cali Macalin Daawud oo horey xaaskiisa u gubay in tiirka cadaaladda la geeyo oo isna xukunkii dil toogashada ah ee lagu fuliyo Sayid Cali ayaa horey xaaskiisa wuxuu u gubay si arxan dara ah iyadoona kiiskiisa marxaladooyin kala duwan uu soo maray balse kooxda ama markaasi maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun 3 jeer ay ku riday oo dil toogasho ah balse warar hoose oo soo ifbaxaya caawa aan helnayna waxa ay tibaaxayaan in Sayid Cali Macalin Daawud maalintii biri ah tiirka cadaaladeed la geen doono xilli la ogsoon yahay in reerka Luul Cabdicasiis aabaheed uu ku adkaystayba in loo dilo ama loo qisaaso mooyaane inuusan si kale ku cafinaynin haddii uu adduunyada uu ku waayana xaq maalinta aakhira ayuu sheegay inuu heli doono balse qabanqaabadii ugu dambeysay ayaana socota oo lagu doonayo in lagu soo afjaro Sayid Cali Macalin Daawud oo horey xaaskiisa u gubay dhacdadan ayaana markaasi 2 sano ka hor dhacday xilli uu markaasi xaaskiisa uu si arxan dara u gubay gaaskii ama benziinkii iyo jinsiigarkii lagu gubi lahaana isaga gacantiisa ku keensaday oo nolosha dhaafsiiyay gabar uu isaga markaasi qabay inkastoo aysan wax u dhalin haddana si arxan dara ah ayuu dilay kiiskoodana maxkamad maartay 3 jeer ayuu soo maray ugu dambeynna maxkamadii kala duwanaana xukun dil ayay ku fulisay maxkamadda gobolka Banaadir iyo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya waxa ay markaasi ay dhaleeceen ku aadan toogashada Sayid Cali ayay wajahayeen maalmihii u dambeeyay xilli ay noognahay gabar hodan lagu magacaabo oo Puntland joogtay gabar iyadoo yar 14 jir ay dishay ayaa tiirka cadaaladeed la geeyay waliba si dhaqsi leh ayadoo markaasi dabayaaqadii sanadii 2025 ay dhacdaas sameysay 26kiina laga oofiyay ama markaasi laga jaasiyay oo tiirka cadaaladda la geeyay oo xukunkii dilka ahaa ee lagu fuliyay balse su'aashiis weydiinta mudan ayaa in wali Sayid Cali Macalin Daawud ay gacmaha dawladda ay ku jiraan iyadoona hadda warar hoose soo ifbaxaya oo aan markaasi la hubin ay sheegayaan in maalintii biri ah oo la toogan doono Sayid Cali Macalin Daawud oo horey xaaskiisa u gubay waxa soo ifbaxaya xogo markaasi sheegaya in maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu yeertay qoyska uu ka dhashay dambiile Sayid Cali Macalin Daawud oo markaasi horey xaaskiisa nolosha ugu gubay sidoo kalena maxkamaddana ay ku riday xukun dil toogasho ah waliba 3 jeer ah maxkamadda maadaama ay xukun dil toogasho ah waliba 3 maxkamadood uu soo maray haddana waxa ay reerkiisa u yeereen waxaana loo sheegay in ay maalintii biri ah ay la filayo in qisaasto ay dhacdo xogaan ayaana tibaaxaya in Sayid Cali Macalin Daawud la geen doono tiirka toogashada qoyska ayaana arkaya markii ugu dambeysay maadaama qoysku marxuum Luul Cabdicasiis ay ku adkaysteen in la toogto oo ay tiirka la geeyo ninka gabadhooda nolosha markaasi ku gubay waxaana la sheegayaa in dhowr la isku markaasi dayay waa markaasi dhowr jeer la isku dayay in la xaliyo waana lagu markaasi guul dareystay inay ku heshiyaan ayna qoyskana ay marxuum Luul Cabdicasiis ay markaasi qaateen xukunka dilka ahaa iyadoona la filayo in maalintii biri ah ay xukunkaasi u dhaco horey ayaa sidan oo kale u dhacday in tiro jeer ah ay labada reer ay isku dayaan in arinkan ay xaliyaan balse reerka gabadha laga dilay ayaa inta badan ku adkaysteen in gabadhooda meeshii la mariyay ay aaday uu ninkan la marin doono oo ay tiirka cadaaladda loo geen doono aabaha Luul Cabdicasiis
Aaba Cabdicasiis ayaa marar badan warbaahinta ula hadlay waxa uu sheegay in tiirka cadaaladeed la geyn waa markaasi uu dalbaday in tiirka loo geeyo loo toogto hadal cajiib ah ayuu sheegay intuu warbaahinta uu la hadlayay gabadheeda uguma darin in uu markaasi uu dilo waxaan markaasi aan ugu daray sidoo uu la raaxaysan lahaa isagana nolosha ayuu gabadheeda ku gubay waa in la igu fuliyaa xukunka dil toogashada meel loo dhaafana male xukunkaas ayuu qaatay Aaba Cabdicasiis iyadoona maxkamadaha iyo waliba sidoo kale arintan dadka ku shaqada la looga fadhiyo in ay soo gabagabeeyaan ayna xukunka dilka toogashada ay ku fuliyaan Sayid Cali Macalin Daawud oo la filayo in uu markaasi xukunkaasi 3 jeer ay ku fuliyeen maxkamadihii kala duwanaa ee gobolka Banaadir maxkamadda sare maxkamadda markaasi kala duwanaa ee soo maray ayaana saddexdooduba ay ku xukumeen in ay dil toogasho ay ku xukumaan maaratan lagu helay dambigii maadaama uu xaaskiisa si arxan daraha u gubay gabadhana markaasi saacaday maalmo kadib ay dhaawacaas xoog badan soo gaaray ay u geeriyootay kadibna uu isaga ka baxsaday gudaha markaasi magaalada Muqdisho isagoona gaaray gobolada dalka lana soo qabtay oo ay markaasi ka soo muuqday maxkamadda kala duwanaa isagoona lagu xukumay xukunkii dil toogashada balse laakiin aan wali lagu fulin hadalhayn badan ayaanu markaasi kiiskan abuuray iyadoona wali ay dadku ka dhowr sugayaan maalinta ugu dambeysay ee tiirka cadaaladeed la geeyo mardhaweed oo hadlayay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side General Xasan Nuur Shuute ayaa sheegay in qof kasta oo maxkamadda ay ku xukunto xukun dil toogasho oo markaasi uu dhici doono xukunkaasi sida loogu fuliyay oo markaasi sida loogu riday oo ahaan doono aan laga laawin doonin arintaas ayaana dad badan farxad gelisay iyadoona la filayo in dhawaan xukunkaasi uu dhaco xilli warar caawa soo ifbaxaya ay sheegayaanba in maalintii bariya lagu kala bixi doono daawada adigaan aragtidaada qaybta hoose faalada noogu reeb haddii aad halkan nala soo gaarto xataa qof walba wanaagsan waxaan aris la kaaga codsanaya inaad page-ka soo follow garaysid muuqaalkan la garay siina share garay saaxiibadaada la wadaag sidoo kale YouTube-ka soo subscribe garay waa ku mahadsanid daawashada muuqaalka mahadsanidin